ayadoo muddooyinkii u dambeysay ay sii badanayeen weerarada qorsheysan ee u badan dilalka iyo rabshadaha jinsi naceebka iyo midabta koorka ee lagu hayo dadka ajaanibta ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa jiray hay'ado u dooda qaxootiga oo qabanayay barnaamijyo wacyigelin ah kuwa oo dadka lagu barayo dhibaatooyinka ay leeyihiin falalka guracan ay kula kacayaan dadka ajaanibta iyo sidoo kale barnaamijyo isdhexgalka bulshooyinka hay'adda Sonke lagu magacaabo oo kamid ah hay'adaha dawliga ah ee ka howlgala inta badan qaaradda Afrika ayaa kulan waxay isugu keentay inta badan dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga xubno kala duwan oo kala socday jaaliyadaha qaxootiga ku ah dalka Koonfur Afrika iyo waliba wakiilo ka socday hay'adaha kale waxaana kulanka lagu qabtay xarunta Sasa ee magaalada Cape Town inay tahay aqoonta waxbarashada wadamada horumare oo aad u horumaray xenophobia ku yarta way ka dhici kartaa laakiin way ku yartaa kuwa aan waxbarashada ay ku yartahay aqoontooda yartahay ama mar dhow xornimo qaatay sida South Africa kale waa ku badan tahay because dadkii aqoon ma laha ujeedada kulanka ayaa waxay in la helo xog ku aadan waxyaabaha dhaliya arrimaha la xiriira jinsi naceebka iyo sababaha keena isla markaana loo aruurin lahaa aragtida dadku ay ka qabaan falalkaasi si meel qoran looga soo wada jeesto dadka ku kaca falalkaasi isla markaana loo horkeeni lahaa sharciga Abdullahi Ahmed Maxamed oo ka socday hay'adda Sonke lagu magacaabo oo barnaamijkani qabata ayaa sheegay in muhiimadu ay ahayd in la helo fikir buuxa oo laga duulaan tago si wax looga qabto arrimahani qaybta maanta aan sameeyno xawad waxay ka mid tahay waxaan isweydaarsaneen fikradaha sidee midabta koorka amba xenophobia waxyaabaha loo yaqaan loo yareyn karo taasoo ku imbaartay booliska hay'adaha kale ka shaqeeya fieldiga maxaa la yiraahdaa nurseska cid walba markaas loo aaneynaa inay qayb ay ka tahay ajnabi naceebka in iyo maxaa la jira community-ga Soomaalida isu keeno ay fikradooda isu weydaarsadaan ay ka jawaabaan maxaa la yiraahdaa waxyaabaha keeni kara sar u qaadi karo kor u qaadi karo xenophobia ama ajnabi naceeb si kastaba haddii qabsoomidda kulankan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli dalka Koonfur Afrika qaybo ka mid ay ka socdaan banaanbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan kooxo South African ah oo boobaya goobaha ganacsiga dadka ajaanibta ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka Koonfur Afrika Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa